caawana waxaa ugu doorroon madaxweyne farmaajo oo la kulmay madaxweynaha maraykanka ee Donald Trump. taliska militariga Soomaaliya oo sheegay in 30 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen weerar ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. Jubbaland oo sheegtay in xayiraadii la saaray siyaasiyiinta ka qaybgeli lahayd caleemasaarka madaxweyne Axmed Madoobe ay sababtay in dib loo dhigo munaasabadaas. maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegtay in tilaabo adag laga qaadi doono askarta iyo saraakiisha dayacay hubka ay mas'uulka ka yihiin. xukuumadda Soomaaliya oo amartay in hay'adaha dalka ka howlgelaya ay soo maraan wasaaradda qorsheynta. Somaliland oo ganacsatada ka mamnuucday in muddo 2 bilood ah aanay soo dejin karin wax shidaal ah. iyo wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo kan Ukraine oo la soo bandhigay xilli Trump uu wajahayo baaritaano uu xilka ku weyn karo. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad. وهبين 4 taariikhdu ay ku beegantahay 25 bisha 9 sanadka 2019 warkan oo dhan waxa caawa u diyaara Umar Maxamed Soomane. aad baad u mahadsan tahay war-soo-saareheena caawa Axmed Saciid Axmed aan ku bilaabano sida hordhaca wararka qodobada aad ku maqlayseen. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ayaa ka qayb galay kulan soo dhaweyna ee uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu u sameeyay madaxda ka qayb gashay meertada 47aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu socday kulankaasi waxa uu si gaar ah ula kulmay madaxweyne Donald Trump iyagoo isla soo qaaday arrimo badan oo ay xaaladda dalka Soomaaliya ku jirto. madaxda dalalka caalamka ee ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa ka qayb galaya shirka guud ee meertada 47aad. shirkaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu soo qaadayaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada cimilada dunida, ciribtirka ururada argagixisada, la dagaalanka saboolnimada iyo sidoo kale arrimaha waxbarashada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo kala gaargaara New York waxa uu kula yeeshay qaar ka mid ah madaxda dalalka caalamka ee shirka ka qayb galaya. waxaana madaxda uu la kulmay ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Kenya iyo Masar iyo ra'iisul wasaaraha dalka Belgiumka iyaga oo ka wada hadlay arrimo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. taliska militariga dalka ayaa shaaca ka qaaday in 30 ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dileen weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. wariyahayaga Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faafahinaya. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay una dhexeeyay ciidanka xoogga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan wadada xiriirisa deegaanada Ceel Saliini iyo Gadarshe ee gobolkaas. ila xoogaal ah oo la hadlay Keenan ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay weerareen deegaan ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose. wararka ayaa intaa ku daraya inuu jiro khasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay walow aan si rasmi ah loo ogeyn inta uu la egyahay. wakaalada wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa lagu qoray in ciidanka xoogga dalka in ay dileen in ka badan 30 ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab weerar ay ku qaadeen inta u dhaxaysa deegaanada Ceel Saliini iyo Gadarshe ee gobolka Shabeellada Hoose. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxay sheegeen in ciidanka xoogga dalka ay howlgal ku weerareen xarun ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu xusay Soona. weerarkan ayaa daba socda kadib maalintii Axad ahayd weerar al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Ceel Saliini kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo gaadiid la qabsaday intaba. iyadoo 26 bishan oo ku beegan maalinta baritaan la filayay in magaalada Kismaayo lagu qabto xafladda lagu caleema saari lahaa madaxweynaha ay dib u soo doorteen xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa haddana Jubbaland waxa ay shaaca ka qaaday in xayiraadii la saaray siyaasiyiintii ka qaybgeli lahaa xafladda caleema saarka Axmed Madoobe ay sababtay in dib loo dhigo xafladda caleema saarka. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan faafahinaya. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku dhawaaqday in dib ay u dhigtay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam taas oo lagu waday in ay dhacdo maalinta bariya oo ku beegan 26 bisha 9 ee sanadkan 2019. Jubbaland ayaa dib u dhaca munaasabadda u sababaysay xayiraadda ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay saartay wufuud heer caalami ah oo ka soo qaybgeli lahaa munaasabadda. wasiirka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowlad goboleedka Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo shir jira ay ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta la wadaagay sababaha keenay in dib loo dhigo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. waxaan idin cadeynaynaa in caleemasaarkii madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam
muddo kooban dib loo dhigay taasi oo sabab u tahay joojintii sharci darrada ahayd ee diyaaradaha soo aaday Jubbaland ee xukuumaddu ku soo rogtay arrintaasi oo keentay in madaxweynayaashii hore qaranka oo soo aaday Jubbaland ay ku xanibnaan xamar waxaa kaloo xanibnay xildhibaanadii labada gole iyo marti sharaf kaloo fara badan ku xayirmeen xamar iyo meelo kala duwan oo kale wadanka ka mid ah. dhinaca kale wasiirka ayaa faahfaahiyay xayiraadda ay dowladda Soomaaliya saartay ayaa sheegay in dhibaatooyin xagga bini'aadanimada ahi ay ka dhasheen. waxaa kaloo yaab iyo amakaag leh in xukuumaddu ay maanta inkirtay eedaymihii ay lahayd ee dhibaatooyinka keenay oo ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed ee ku xanibnaa 22 bishii ilaa iyo maanta ay yiraahdeen ma aanan xanibin mana aanan ka dambaynin ay yiraahdeen ayaa wax lala yaabo noqon kuwaasi oo ay ka dhalatay dhibaatooyin bini'aadanimo oo adag. dhibaatooyinka ka dhashay waxaa ka mid ahaa 2 gabdhood oo maalmo kala duwan ku fooshay deegaanka Afmadow iyo Doobley oo diyaarad waayay oo qalliin u baahday oo loo soo qaaday Kismaayo baabuur labadiiba ay isku dhinteen carruurtii iyo gabdhihiiba. waxaa kaloo dhintay dhowr qof oo cudurro qabay oo daawooyinkooda looga soo qaadi jiray xamar oo moodayay inay diyaaraduhu socdaan oo markii loo sheegay daawadiina waayay. waxaa kaloo dhibaato noqotay dad beec mushtar ahaa oo ku xilnaa xamar oo dhulka maray oo iyagana ay shabaab qafaasheen hadda aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin. war-saxaafadeedka laguma xusin wakhtiga rasmiga ah ee la qabanayo xafladda caleemasaarka balse waxaa lagu shaaciyey war-saxaafadeedka in dib loo dhigay maalmo kooban. cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic idaacadda kulmiye magaalada Kismaayo. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in tallaabo laga qaadi doono askarta iyo saraakiisha dayaca hubka ay mas-uulka ka yihiin. wariyahayaga farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Korneel Xasan Cali Nuur Shoote oo socdaal ku tagay deegaanka Ceel Saliini oo dhawaan militariga Soomaaliya ku weerareen al-shabaab isla markaana hub iyo gaadiid loogu qabsaday ciidamada dawladda ayaa wuxuu digniin u diray saraakiisha ciidamada dawladda. sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay in shakhsiyaadkii ay ku cadaato dayacaadda hubka dawladda ay la xisaabtami doonaan isla markaana ay ka qaadi doonaan tallaabo adag. sida uu sheegay waxaan halkan u nimaanay xeeraaliyuhu iyo guddigiisuba inay baaris wax ku ool ah oo la taaban karo caddaynayso ciddii lahayd wixii dhacay mas-uuliyaddeeda inay soo sheegaan. haddii uu jiro dayacaas yaa qaaday ma taliska ciidankaa le ma kan qaybtaa le ma saraakiishii maamulaysa ururkaa le ma ciidankii ka shaqaynaya halkaanaa le waa inay mas-uuliyaddaasi cid qaadataa waayo. annaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkan aan u joognaa inay ciddii ku caddaato mas-uuliyadda dayacaasi ciddii ku caddaato in tilaab laga qaadaa. halkaanaan joognaa waxaan tegi doonnaa xerooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan. hubka ciidanka waa laisku xisaabinaa. askari ka tirsan ciidamada qalabka sidane inuu si fudud amba si dayaca oo wax ku gaaraan waa laisku xisaabinaa. xerooyinka idil gobolkan aan xerxere u tegi doonnaa. waxaan ugu talagalnay arrintaasni in ay ka baxdo meesha in inta dhacdo qof ku dhinto hanti ciidan lagu waayo laga aamusaa halkaas inay arrintaas dhammaato. hadalka gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa xilli dagaalamayaasha al-shabaab hub iyo gaadiid ay ku qabsadeen deegaanka Ceel Saliini oo ay weerar ku qaadeen isla markaana lagu dilay askar ka tirsan militariga Soomaaliya. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku amartay hay-adaha dalka ka howlgelaya in ay soo maraan wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan noo faahfaahinaya. wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlayay shirka qorsheynta istiraatiijiyadda cuntada ku meel gaarka ee adduunka oo ay soo qabanqaabisay hay'adda WFP ayaa sheegay in qorsheynta istiraatiijiyadda cuntada ku meel gaarka ah loo baahan yahay in la soo marsiiyo wasaaradda qorsheynta Soomaaliya kadibna loo gudbin doono maamul goboleedyada dalka ka jira si loo dooro nidaamka iyo kala dambeynta ee mashaariicaha laga fulinayo dalka lana marsiiyo si ay u ogaato dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa intaasi ku daray in hadda kadib aysan wasaaraddiisa aqbali doonin in hay-ad inta waddanka ay imaado ay ka samayso waxa ay doonto loona baahan yahay in hadda kadib hay-adaha ka shaqeeya dalka inay soo maraan
wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya si loogu fududeeyo howlaha mashaariic ay rabaan inay ka fuliyaan dalka. sidan oo kale waa sidaan rabno in waddanka looga shaqeeyo. qofkii waddanka yimaada ee hay'adda imaanaysa nala shaqeynaysa waa inay soo martaa nidaamka saxda wasaaradda timaada qorshahooda keenta la geeyaa dowlad goboleedyada iyo waddanka oo dhan talada dadka lagu soo daro dabeedna wixii la isku raaco loo soo bandhigo sidaan uga shaqeeyaan. laakiin inay dibadda nooga keenaan oo dana yidhaahdaan saan u isticmaalaynaa arrintaas lama aqbalo amana aqbalayo amana aqbali doono haddii alla idmo. marka saan oo kale aan rabnaa dabeecaddan oo kale in dadku la shaqeyn dadka waddanka nooga yimaado inagoo ixtiraamayna nidaamkooda shaqaynta shuruucda caalamiga iyo shuruucda dalkeena oo qeexaya xiriirkan yeelanayno innaga iyo saaxiibadan. qorshaha istiraatiijiyadda kumeelgaarka ee cuntada adduunka soo qaban qaabisay hay'adda WFP ayaa hore waxay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya la tashi ugala sameysay dowlad goboleedyada ka jira dalka in hay'adaha qaar inta imaadaan ay ka fuliyaan wax ay doonaan. amar ka soo baxay Somaliland ayaa ganacsatada shidaalka ee ka howlgasha deegaanadaasi waxaa si rasmi ah looga mamnuucay in muddo bil ah gudahooda aanay jirin wax shidaal ah oo ay la soo degi karaan ganacsatadaasi. Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa. xukuumadda Somaliland ayaa markii u horeysay ganacsatada ka ganacsada shidaalka oo ku wargelisay in muddo 2 bilood aanay dalka soo galin shidaalka noocyadiisa kala duwan. qoraal ka soo baxay xafiiska maareeyaha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera Xasan Axmed ayaa lagu sheegay in aan loo ogolayn ganacsatada isla markaana lagu wargelinayo in shidaalkaasi aanay keenin muddo 2 bilood. qoraalka waxa uu ku sheegay maareeyaha haamaha shidaalka kaydka Berbera in Somaliland ay haysato shidaal isla markaana uu kaydsan yahay 2 bilood ay isticmaali karto. balse ganacsatada Somaliland ee lagu wargeliyay in aanay soo dejin shidaalkaasi ayaa ku tilmaamay qoraalka ka soo baxay maareeyaha haamaha kaydka shidaalka Berbera mid xukuumadda Somaliland ugu gogol xaarayso sidii ay u keeni lahayd shidaal isla markaana ay hore u shaacisay inay keenayso Somaliland shidaal. qoraalka sidoo kale waxaa lagu sheegay in xukuumadda Somaliland ay keenayso naaftada isla markaana ay buuxsami karaan haamuhu. war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska maareeyaha haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera Xasan Axmed waxaa lagu sheegay in ganacsatada Somaliland lagu wargelinayo in aanay keenin si aanay khasaaro ula kulmin isla markaana xukuumadda Somaliland ee madaxweyne Muuse Biixi uu hogaaminayo aanay dib u celin maraakiibta u wada shidaalkaasi ganacsatada. xukuumadda Somaliland gaar ahaan haamaha kaydka shidaalka ayaa la sheegay in dawladdu ay keenayso shidaal si dadku ay uga iibsadaan xukuumadda iyo ganacsatada. arrintaasi oo ganacsatada shidaalka soo gelisay Somaliland ay aad uga walaacsan yihiin sida ay suuqa ugu tartami karaan ganacsatada iyo shidaalka ay mas'uuliyadiisa lahaanayso xukuumadda Somaliland taasi oo la filayo in bisha 10aad ee sanadkan la keenayo guud ahaan Somaliland.